waxay yidhaahdaan sida bini aadamka wejiyadiisu u kala noocyiin baa aaraadiisuna u kala gedisantay sidaa qof waliba caalam gaara uu yahay marka wejigiisa la eego ayaa maskaxda ka dambaysana ay caalam gaara u tahay haddana sidaa aynu bini aadamka una isku wejiga u wada nahay ayaa waxaynu wada wanaagno aara ayna jirayaan bini aadam baynu wejiga ka wadanno nin waliba 2 indhood iyo san iyo af iyo 2 sunniyood iyo intaasuu leeyahay xaggana waa isaga wada eegnay idan waana isu egnay waana kala gedisanay caqliga bini aadamka iyo aaraadiisa si uu fakarayana waa sidaa waana isu eg yahay waana kala gedisan yahay wuxuu ku kala gedisayna waa jiraan waxa kaloo intaa dheer masaalixda bini aadamka waa kala masaalix waxaasoo dhamme waxay keensanayaan iyaguna in dadku khilaafaadku ay jiri karaan haddaba khilaaf kastoo jira shareecada islaamigii marnaba ma bannaynin taqaatuca in la isgooyo waxaa kuugu filan inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista dabeetana ilaahay waa u dembi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin 2 nin mooyaane buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laba iyagu maalintaa isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa labadani maxay sameeyeen waxaa la yidhi waa ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qof isaga iyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran uu dhex yaalay qoladaa waxaa ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhaha labadan arrinkooda dib ha loo dhigo idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go-o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo inaad noqoto kuwa alla u dembi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan waxaana macruufa xadiidkii ku yaalay sunan abu daawuud iyo ibnu maajaan rajaynaya iyo kayrkoodba sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeyahy man hajara akhaahu sanatan fahuwa kasafki dami ama hajru lmuslimi kasafki dami riwaayadda kalena waa soo aroortay adab اlmufrad lilimaam اlbukhaariy calaa kullin xadiidku waxa uu tilmaamayaa inaad walaalkaa goyso shaxnaa bay tii hore ahayd colaadiyo inay dhex taallo inaad goyso muqaaaca ku samaysaana oo aad ka hijrootaana sanad inaad hijro iyo cadho iyo dudmo ku maqan tahayna inaad dhiiggiisa qubtay la mid tahay buu nebigu leeyahy calayh الsalaatu wasalaam dhiig qof muslimoo la daadiyaana waxaynu garanaynaa sida uu wenyey haddaba bini aadamku kala tagga kuma habboona qofka muslimkaana aakhiradiisa iyo adduunkiisa midnaba faa'iida uguma jirto colaaddu idan waxaa loo baahanya in colaadda laga tallaabsado bini aadamka isqabadkiisu maraaxisha uu maroo dhan islaamku markaa qaab loo farsameeyo oo colaaddaa iyo dhibtaa iyo cadhadaa iyo ishayntaa loo saaro ha ahaato maraaxisha hore hadday maraysee ah xogaaga muranka iyo caloolxumada ama maraaxisha ku xigta hadday gaadhe ah alhajr waatabaacud in la kala guuro ama la isgooyo ama maraaxisha ugu dambaysa hadday gaadho ah in la isdilo oo la isku xadgudbo intaba islaamku xal buu u sameeyey idan mawduuca in dadka la heshiisiiyo oo la walaaleeyo waa mawduuc islaamka aada ugu weyn walaalayntaasina raadna waa ku leedahay nolosha qofka muslimka ah ka fardi ahaan qof ahaan iyo bulsho ahaan qabiilo ahaan shirkado ahaan dowlado ahaan iyo shucuub ahaan mid kastaba raad bay ku leedahay ishaynta iyo muranku sidaa awgeed baa shicaar qur-aanku wuxuu ka dhigay wasulxu khayr baa ilaahay yidhi wasulxu khayr sulxi dhammaantii sulxi sharciga waafaqsane waa khayr baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala heshiisku in la heshiiyo oo dadku iscalool xaadho oo ishuur maydho oo walaaloobo oo la heshiiyaa waa khayr buu ayuu qur-aanku tilmaamaya rabbi subxaanaه wa tacaala aadanaha maanta noolla
tajaaribta nololeed waxay bartay fikirka qaanuuniga ee caalamiga ee maanta inuu u janjeero naxwa asulxi waalmufaawadaat inuu bini aadamku heshiiyo oo gorgortamo oo aanu colaad iyo xoog iyo ismuquunin ku xallilin dhibaatooyinka dhexdiisa dhacda walidaalika maanta duwalka dunida jira waxay leeyihiin xafiisyo u furan inay ummadda heshiisiiyaan reeraha isqabta cidda muranta cidda waa consulting waa dad loogu talagalay inay dadkaa heshiisiyaan ciddaysa xafiis bay tegaysaa waxaanay u tegaysaa xafiiskani mediation ku yaqaanaa sida dadka loo dhex galo farsamadaa dad yaqaano weeyaan marka wuxuu isku kiindayayaa inuu isu keen keeno xataa maxaakimta waaweynee dunida waxay isku daydaa qofka intaan xukumka la ridin oo aan garnaq iyo xukum la gaadhin in dadka musaalaxa laga raadiyo oo looyradooda la isu diro la yidhaahdo bal inaad musaalaxa samayn kartaan dib u noqda waana masaladii cumar bn اlkhaaab uu lahaa radia allahu canhu wa ardaa ahar baa laga sheegaa uu leeyay raddu اlkhusuuma xataa yasطalixuu faina faslu اlqadaءi yuuriثu baynahum الdaqaa'in cumar bn اlkhaaab waxaa laga sheegay inuu yidhi qudaadu wuxuu leeyahay dadka ishaya bal dib u celiya intay ka heshiinayaan waayo waxaaba laga yaabaa xukumka qaadiga iyo maxkamaddu inaanu dadka laabtooda maydhin walow xuquuqda uu rido yani waxay yidhahdaan culammadu alqadaa'u radd اlxuquuq buu sameeyaa sulxiguna waxay yidhaahdaan radd اlquluub buu sameeyaa qadaagu xuquuqdun buu kala gooyaa laakiin waxay leeyihin heshiisiinta iyo sulxiga iyo dhexdhexaadintu quluubta dadkay dib u walaalaysaa idan ayuha alaxiba khilaafka iyo muranku waa xanuun waxa laga dhaxlaana uu yahay dacfi iyo liidasho iyo tamar darro sulxiguna waa dawo waxa laga dhaxlaana uu yahay naxariis iyo quwo heshiisiintu markaa